meeshaan aan joogno oo beerta magaceeda horta waxaa la dhahaa fardaconayaal muddo aan ku soo jirray halkaas 8 sano ayaan wadnaa shaqada tan hadba heer bay taagnayd maalinba meel baan soo gaarsiinaynay hadba ninku intuu tabartiisu ha soo dhaqdhaqaajinayay sideedana beer waxa weeyaan ninka baniya umba hal mar xoogeeda qab inta ka siiyo oo diyaariya dhulkeeda uu ka bacdi wuxuu sameeyaa miraheeda hal mar goosta laakiin dadka reer tabareedka maalinba meel bay soo istaajiyaan mar bay meel la soo gaartaa hadda muddada fara badan aan ku soo jiray oo aan wadnay hadda halkaan ay maraysaa waxaan waasisin 7 hektar baa hadda inoo muuqata oo diyaarsan dhinacaan xaggaas iyo dhinacaas kale aan tagina adigu ayaga min hal hektar baa ku diyaarsan hadda sisinta kaliya saaran awal wixii ka horeeyay waa qaybin jiray oo waxaan qaybin jiray basbaas iyo barbarooni iyo yaanyo iyo digir iyo sisin iyo misaga iyo loos yaa ka soo go'i jiray aad uga soo go'i jiray magaalada Gaalkacyo dhan la geyn jiray waxa keenay marka inaan wada sisin ka dhigo biyihii qudradaadkaas aan ku waraabin jiray yaa dhumay annana waxaan ku noolahay bahalkii muxuu ahaa roobka markii roobku yimaado biyahan qabanaa biyahaas aanu dhulka aanu siinaa biyo beerta waxaan qabaa hadda aniga inta tan haddii bilmeenta ceel biyo la helo ama xurfada inta la weyneeyo aan ka dhigo loo helo bacda biyaha sanadkii gaarsiisa inaan cover garayn kara qudaarta dhan ay Gaalkacyo u baahan tahay maxaa yeelay waxaan soo bilaabay maamul 15 anoo jira yaan beerta ka soo bilaabay waxaan sameynay oo kale markaan saan u beeray mishiinkii macsarada shiidayo aan keenay markii waxaan ayada ka soo go'aan ku shiidno hadana wixii dhaga dhimanaada koonfur ma kala naado qalaaf iyo beledweyne iyo xamar yaa ka diraa Gaalkacyo ka rakabanta iyadoo saafiyaad hor saraysa saacad hor dhiganaysa fay waxaan jeclahay inaan hadda ayada aragno sidaas oo kale hadda halka geedahan waxa saaran shinni waanu qabanay meeshii deganta ayadana waxa weeyaan wax soo saar xoog leh aad u fiican waxay ka wargaraysaa markay isfiicantay shaqaalaha beertooda oo ku filanta markay dhasho oo la guraayo bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsan yahay garaad gaas dhunkaal maanta waxaan ku nimid beerahan fardaconayaal inaanu soo kormeerno si wax soo saarka dalka iyo sida dhulka looga faa'iideystay deegaankii hodanka ahaa ee dhul beereedka ahaa looga faa'iideystay inaanu soo aragno hadda sida uu ku warbixiyay waa 7 hektar oo sisina kadibna wuxuu soo diyaariyay oo uu keenay mishiinkii macsarada shiidayay macsaradaas wax badan baa looga faa'iideystay insha Allah warshada waa tagi doonaa manakaalka ka soo baxa geela magaalada lagu xanaaneeyo barqamaalka iyo fiidmaalka iyo iyaguna sidoo kale calaf xoolaha ay cunaan buu noqday runtii dhulkeenu waa hodan waa barwaaqa ka buuxda calafnimo u diido cuno waaya mooyee ciideenu waa hodan
waxaa naga go'an inaanu gobolka mudug ciidiisa ka faa'iideysano oo waxa aanu cunayno aanu isaga kala soo baxno waxa aanu xiranayna gacantayada aan ku samaysano sida dharkayagaas aliindiga ah oo kale inaanu isku filaansho gaarno waxa martino ah oo nala jooga Cabdirasaaq Axmed Aadan oo aqoonyahan reer Puntland oo dalka Canada ka yimid isaguna bal inuu arko dalku inuu yahay dal barwaaqo ah oo khayraad ka buuxo sidoo kale waxa nala jooga jaamac orshe oo ganacsade Afrika maal badan galiyay waxaan leenahay jaamac halkaan maalka noo keen maal gasho xoolihii baad arkaysaa beerihii baad arkaysaa barwaaqadii baad arkaysaa canshuurtaan ka qaadanaynaa qaaraankan ka qaadanaynaa sadaqadan ka qaadanaynaa ehelkii iyo dadkii baa ku noolaanaya soo dhawaada arka barwaaqada dhulkeena taala calabnimo u diido cunu waaya mooye ciideena waa hodan waxaan ku dhiirigelinaynaa dalka in la maal gashado wax soo saarka dalkeena ina ku filan wax walba aynu cunayno isagaynu kala soo baxaynaa waxaynu hadda u tageynaa mooskii iyo cambihii iyo liintii iyo qudaartii wax walba iyaguna sidoo kale u diyaarsan wax walbana waxay ku xiran yihiin sida aynu ula nimaano shaqada aynu ula nimaano malabkii isagoo la isku dardaray ama isagoo warshadaysan dibadda leeno ka keeni jiray ayaa beertan ka soo go'aya isagoo dabiiciya oo ubaxa dhirtaas faraha badan fareesha ay ka soo saareen magaalada isna la keenaya wax walba marka hadaynu isku dayno waynu isku filnaan karnaa wax walba nolosheena waxa kale oo gobolka ka socdo horumar dadku isku tashaday oo ah in kalluunka badda ceegaaga ee badweynta Garacad ee gobolka uu leeyahay oo xeeb aad u dheer ah kalluunka laga soo saaro halkaas in ilaa iyo Galdogob oo xuduudda Itoobiya la keeno subaxii kalluunka markii la soo saaro waxaan rajaynaynaa wax yar kadib in Galdogob looga qadeeyo wadadii isku xiri jiray Galdogob ilaa iyo Garacad oo wadaagsan ayaa waxa lagu wadaa isku tashi dadku uu isku tashaday halku dhigayaguna uu yahay wan bixi aan wadada dhisne kii xoolaha uu bixiyo kii dhaqaalaha uu bixiyo kii aqoonta uu bixiyo inta markii la isu geeyo waxaan ogaanay inaanu isku filannahay 100 kilomitir bay hadda wadadaas inta dhisantay ay tahay waxaan rajaynaynaa sanadkan gudihiisa soo socda inay dhammaan doonto insha Allah taala marka waxaan haaminaynaa sidii dadka dibadda jira oo jaamac nooga gaarsiin lahaa war meesha hadii dekad aad ka dhisataan oo aad maal gashataan 9 milyan oo Itoobiya halkaan waxa jooga aan bad haysan aan dekadna haysan halka waxa weeyaan maalgashi fara badan iyo fursadaha ku jira iyadana waxaan rajaynaynaa in warbixintaas ganacsatada oo jaamac orshe naga gaarsiin doona hadii alla idmo waxaan maanta kormeerkan sidoo kale uga faa'iideysanayna raggan aqoonyahanka iyo ganacsatada ee dalka dibadiisa nooga yimid inay arkaan dalku sidoo barwaaqo u yahay iyo dadka gudaha jooga siday wax u qabteen runtii waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan marxaati ka noqdo anigu reer koonfur baan ahaa noloshayda inteeda ugu badneed oo dhan reer koonfur baa weligay ahaa waxa iga dhaadhici la maanta inaan marxaati ka ahay in gobolka mudug ay beer ka baxdo bal iska daasasine bal beerba inay ka baxdo waa waxaanan lagu akhriyay inay suurtageleen sideedaba maanta horta arintaas aad baan ugu faraxsanahay hawl badan baan arkaa meesha tan ka socota waa loo baahan yahay inaad isku filnaataan cid idin maqan mala dawlad lama sugi karo dawlad la'aan 22 sano hadda yaa la moog yahay dawlad aad sugtaan ma jirto qurba joog faa'iido idin leeyihiin ma jirto marka halku dhigadii gudoomiyaha waa ka helay oo ah in la isku tashado waa wax aad muhiim u ah beertana hadeertan waa sisin warbixintooda si garaadku waa not only production kaliya inay wax soo saar laakiin processkiya ku jira waa dhameystir beertii ilaa laga soo saaray sisintii laga shiidayo la suuq geenayo intaasi waa production cycle oo buuxa soo ma garan waa wax aad loogu farxo runtii aad baan idin mahadcelinayaa inaad meeshan fursadana siisaan oo aadna tustaan kheyraadkiina iyo hawlaha aad ku jirtaan aad baan idinka mahadcelinayaa baan waxaan ugu faraxsanahay anigu magaalada tan waa joogayo iskuulada iyo ka dhigtay oo hadda magaalo igu cusub maahan laakiin waxa igu cusub waxa weeyaan wax soo saarakan iyo dadaalkan garaad gas dhunkaal uu ka sameeyay runtiina waa wax aan marnaba caadi ahayn ma ahan inuu isagu nacfisado waa sida dadka xoolaha raaco loo qabo in ninka reemiyiga isagu xoolaha leeyahay laakiin xoolaha magaaladu waxay ku degan tahay xoolahaas iyo ninka reemiyiga waxa uu qabtay tanna waxa weeye magaalada waxay u noqon doontaa saldhig la yaqaan waxaan leeyahay dadka iyaga banaanka jira ma aanan qabin sidaan oo kale wax loo qaban karo laakiin dhulakan waa dhul barwaaqada ka muuqata iyo shinnida iyo processkii hadda sidoo Cabdirasaaqba u sheegay sisintii in lagu shiido oo refine yani stage-ka ugu dambeeyay la gaarsiiyo oo dadkii isticmaalaan marka waxaan leenahay dhulku dhul ballaaran weeyaan
wax badan oo baana ka bannaan dadka bannaanka jooga oo diyaasbarada ah oo nolosha qaaliga ah ku degani inay inta yimaadaan dhulkan maal gashadaan laba waxyaaloodba waa laga faa'iidayaa mar dalkiiba wax looga qabanaya mar qofkiiba nacfisanaya mar ilaahay xaggiisa ajar geedka shimbirtii daaqda iyo dadkii ka shaqeeya iyo geed xoolihii daaqa intaba ajar bay ka helayaan oo diin ahaan iyo nacfi ahaan iyo wax walba baa meesha ku jira marka anigu waxaan qabaa indhay noo furtay beerta tan khayr allaha siiya aadan dhukaal kuwa kalena waa jiraan oo cambe iyo liin iyo wax walba leh 42 kilomitir baan soo soconnay qori baan nala ku waardiyeynayn dhulku waa nabad gudoomiyihii gobolka waa nala socdo oo aan qori iyo midna waxba wadan marka dhulku baqdinu kama jirto nabadgelyada number 1 nabadgelyadii waa la haystaa marka wixii kalena waxa weeyaan in wax soo saarkii xaqooda loo jeesto anu marka waxa weeyaan hadalkaygu dulucdiisa oo aan rabaa inay gaadho waa dadka qurba joogta ah oo dalkii ka baqaya anu 31 sano ka maqanahay dalka banaankiisa jira gaalkacyana waxa ay ugu dambeysay 77 maantana waa 34 sano marka dhulka loo soo noqdo waxa la gashado waxadaan waqti iyo xoolo la gelin waxba ma soo baxayaan dhulka aad joogtiin idinku ma lihidin kana leena Daka yago